السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا 10 عصب ونكبرانينو سيد الله أخريو لونا قرو جيسون فايلز جيسون فايل وحو تاغي ارغ جيسون جافا سكريبت اوبجكت نوتيشن هسه اعطي جافا سكريبت وحشقاكم له و تكست فايل marka waa structured data oo aad loo isticmaalo waa sidii CSV oo kale marka waa it is a lightweight data interchange format waxaa loo isticmaalaa datada marka la isu gudbinayo oo maadaama uu text file yahay lightweight na yahay therefore it's common to transmit and receive data between a server and a web application in JSON format marka waxaa common ah caadi ah in JSON ka loo isticmaalo marka data la transmit gareynayo iyo marka la soo dirayaba in la isticmaalo JSON inta badan marka website ka markuu server ka soo qaadiyo data ama website kale uu yeerayo ama API endpoint uu yeerayo formatka uu loo soo diro waxa weeyaan waa JSON format sababtaas ay muhiim u tahay marka in JSON ka la fahmo marka datada waa noocan waa sidii dictionary-ga qofka haduu dictionary-ga si fiican u soo fahmay JSON ka si fudud ayuu fahmayaa saad ku aragtaa marka wuxuu leeyahay key iyo value waa sidii dictionary oo kale waxaanu dhex gelin karnaa list marka nested baanu ka dhigi karnaa listiga halka waxaad arki kartaa marka address-kani waa isna waa dictionary oo kale waa sidii nested dictionary oo kale marka waxaa muhiim ah inuu qofku si fiican u fahmay dictionary-ga si uu marka JSON-kana u fahmo marka Python JSON marka la isticmaalayo aad ayuu fudud yahay waayo Python waxaa la socda module la dhaho JSON module-kaas oo ka kooban 4 method oo aynu ku arki doono tusaalayaasha soo socda tusaalaha ugu horeeya halkan waxaynu ku haysanaa dictionary data oo ka kooban key name age student courses oo list ah marka dictionary-gan ayaynu rabnaa inaynu bedelno JSON oo string ah marka hore inaan dhahnaa import JSON oo soo import gareynaa module-ka kabacdi hadaynu dhahno datadii oo string ah modelki json.dumps marka ka esta wata aan isticmaalaynaa oo waxaynu dictionary-gii aynu bedelaynaa JSON oo string ah hadaynu hadda datadii dhex gelino methodkaas kabacdina aynu print dhahno waxaad arkaysaan marka waa objectigii oo JSON noqday JSON uu noqday waxaad ka arkaysaa wuxuu ku bilowdaa curly braces wuxuuna ku dhammaadaa curly braces marka waa isagoo string ah hadda marka haddii aad object haysato ood rabto inaad u bedesho string waxaad isticmaalaysaa dumpskaas oo esta wata tusaalaha labaad ee aan arkayno waxa weeyaan waxaynu haysanaa string baynu haysanaa hadda marka string haddaan rabo inaan magaca hadda print gareeyo ma print gareyn karo waxaan rabaa inaan u bedelo JSON kabacdina markaa aan kiiska isticmaalo si aan u print gareeyo waxaan doonayo marka waxaynu odhanaynaa data is equal to JSON dot load oo s wata marka maadaama string yahay stringiga ayaan u bedelaynaa JSON marka hadda datadani waxa weeyaan waa JSON taa micnaheedu waxaynu hadaynu dhahno print data name waa inuu noo print gareeyaa Axmed waxaad arkaysaa marka JSON ayuu bedelay hadaynu dhahno print coursesida ayuu print gareynayaa laakiinse siduu hadda yahay JSON data ma odhan karno matalan JSON data name ma odhan karo waayo waa string haddaan hadda run dhaho marka error ayaa soo baxaya maadaama aanu ahayn JSON file markaan JSON leenahay hadda data haddaynu typekiisa eegno wuxuu u bedelay dictionary ayuu bedelay marka haddaad string haysato oo stringiga aad u bedesho JSON wuxuu noqonayaa dictionary sidaa markaa loola socdo kabacdi waxaad isticmaalaysaa markaa maadaama uu dictionary yahay methodskii aan kusoo baranay dictionary-ga tusaalaha saddexaad waxa weeyaan haddii lagu soo diro filekan oo kale matalan sideed ugu bedelaysaa dictionary marka filekan hadda waa JSON file waxaa laga yaabaa inuu API inoo soo diray
sidaynu markaa ugu bedelaynaa dictionary oonu akhrin karnaa habkaasaan baranaynaa filekan iyo codekii horeen qoray waxaan idiin soo dhigi doonaa descriptionka halka ayaad haddii aad u baahataan halkaasaad ka download garaysanaysaan marka haddii aynu hadda ku noqonno waa inaynu filekii akhrinaa inaan dhahnaa with open fileka magaciisu waa sample fileka magaciisu waa sample underscore data dot json read baynu akhrinaynaa as f haddaynu dhahno matalan kabacdi waxaan leenahay data is equal to json dot load marka load s maaha waa load f oo filekii ah marka filekii aan load garaynay kabacdina waan print garaynaa print marka filekii aan soo load garaynay waana dictionary hadda haddii aan rabo inaan print gareeyo name magacii ayuu noo print gareeyey marka sidii hadhowto dictionary oo kale ayaan ula dhaqmaynaa sidaan usoo sheegnay maadaama uu dictionary yahay haddaan hadda dictionarygan eego courska math haddaan rabo inaan print gareeyo mathku wuxuu ku dhex jiraa listiga marka waa inaan dhahaa marka hore courses inaan dhahno kabacdi haddaynu intaa keliya print garino courses wuxuu noo print gareeyey listigii laakiin waxaan rabaa matalan mathka kabacdi indexkii aan hore usoo baranay aynu isticmaalina haddaan dhaho 0 wuxuu print gareeyey math waxaan kaloo arkaynaa haddii aan rabno inaan adresska print garino streetka keliya adressku waa dictionary marka waxaynu odhanaynaa address keliya haddaynu hadda print garayno waxaa inoo soo baxay waa dictionary kabacdi waxaynu odhan karnaa keyga waxaan isticmaalaynaa street wuxuu inoo print garayay streetka keliya marka mar haddaad fahamto inuu jasonka markaad soo load garayso uu noqonayo dictionary sidii dictionary oo kale unbaad ula dhaqmaysaa tusaalaha ugu dambeeya ee aan baranayno waxa weeyaan waxaan haysanaa dictionarygan ayaan rabnaa inaan ku save garayno file isagoo ah json marka maxaan yeelaynaa waxaanu samaynaynaa waxaan isticmaalaynaa marka hore inaan filekii furnaa with open hadda file cusub ayaynu qoraynaa marka waxaan u bixinaynaa matalan new data dot json marka hadda new data dot json halkan kuma jiro markaynu laakiin saraan garayno waa inuu inoo sameeyaa filekaas as f kabacdi waxaan isticmaalaynaa json dot dump marka esta maaha waa dump keliya marka dump waxaan u sheegaynaa marka hore inaan datada aynu save garaynayno iyo xagee aynu ku save garaynayna waa f oo filekii inoo ah haddaan run dhahno okay hadda wuxuu yidhi markaa write ma samayn kartid sababtoo ah waxaynu defaultigu mar walba waa read halkan waa inaan ku qoraa w aan run dhahno hadda halkaa filekii inoo sameeyey new data dot json haddaynu furno filekii ayuu inoo samaynaya haddaynu rabnayno markaa filekan aynu ka dhigno hab fudoo loo akhrin karo dib ayaynu ugu noqonaynaa halkan markaan odhanaynaa comma indent 4 oo kale 4 spaces tan hadda run dhaho aan ku noqdo filekii waxaad arkaysaa inuu inoo sameeyey json la akhrin karo oo formatted ah halkaas ayaan ku joojinaynaa casharka waa inoo casharka dambe wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu